halkani waa BBC Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa galabnimo khamiis ah 3 bisha Agoosto ee sanadka 2023 barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada barnaamijkan idinkugu haynana waxaa kamid ah Kenya oo sheegtay inay wado qorshe ay dadka deegaanada waqooyi bari uga qayb galanayso dagaalka ay kula jirto al-shabaab ee weerarada ka geysta gudaha wadankeeda madaxda Mandera saacamal ay ayagana ula kulmeen dadkooda iyo gobolka iyo MP-yaalka iyo madaxda cusub iswataan aan ku sheegayaa shacabka diyaar ayay yihiin wax information oo qarsoon oo hadda naga qarsoon male dowladda Soomaaliya oo madax dhaqameedka qaybo kamid ah galmudug kala shirayso maamulka deegaanada laga saarayo al-shabaab maxay yihiin caqabadaha ku horgudban wajiga labaad ee dagaalka al-shabaab ay hore u shaacisay dowladda Soomaaliya dagaalku waa isku xiga hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed operation waxay ka fuliyaan baydhabo afkeeda ka fuliyaan maalin dhaweed ciidan badan runtii looga laayay kalsooniyaan waxaan ku qabnaa in si talantaal iyo meel walba dagaalka loo gali karo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu wado in maxkamad la soo taago galinka dambe ee maanta waxa kale oo aad maqli doontaan Britain oo sheegtay inuu baaritaan ku socdo tiradii ugu badnayd ee dhalinyaro ah kuwaas oo la haysto falal argagixiso kuwa right wingiga ah badanaa waa dadka cadaanka ay u badan yihiin oo nacaybka dadka kale ee ajaanibka u qaba oo ayagana ku biirayo kooxaas xaq jirka ah kuwa muslimkana badanaa waxay u badan yihiin dadkan maaragtay muslimka ka soo jeeda dhinacyo badan leh Asian leh oo Afrikaan leh oo cid walba leh qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da galabta waxa inoo waramaya Axmed Yuusuf Cadceed mahadsanid Kawsar muwaadiniinta dalka Niger ayaa bilaabay inay isugu soo baxaan fagaara ku yaala bartamaha magaalada Niamey ee xarunta dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan afgambiga military ee toddobaadkii hore dalkaas ka dhacay isbahaysiga ururada bulshada rayidka ayaa ku baaqay in dadku ay maalinta sanad guurada xornimada dalka isugu soo baxaan si ay u cambaareeyaan cunaqabataynta uu dalkooda ku soo rogay urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS ururka ayaa si adag u cambaareeyay afgambiga wuxuuna soo saaray xariiraad dhanka ganacsiga ah ECOWAS ayaa sheegay inay awood u adeegsan karaan haddii aan dib loo soo celin madaxweyne Maxamed Bazoum balse mudaharaadahan ayaa sheegaya in Niger ay fariin adag u dirayso xubnaha ururka dadkii way soo socdaan waxaan ku dibadbaxaynaa dhammaan dalalka ECOWAS iyo dhammaan kuwa qaadaya tallaabooyin aan la jeclayn oo bani aadantinimada ka baxsan oo ka dhan ah Niger taas oo ku jirta habka ay isaga xoreynayso heeryada gumaysiga dalka Niger ayaa wadamada reer galbeedka oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Mareykanka waxa uu xulafo muhiim ah kula ahaa dagaalka ka dhanka ah kooxaha jihadoonka ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay Kuuriyada waqooyi kala xaajoonayaan soo celinta mid ka mid ah askartooda kadib markii Pyongyang ay qiratay markii ugu horeysay inay gacanta ku hayaan askari lagu magacaabo Travis King waxa uu bishii hore ka talaabay xadka aaga militariga ka caagan ee u dhaxeeya labada Kuuriya waxaa loo waday dalka Mareykanka si loo marsiiyo layli dhanka anshaxa ah balse wuu baxsaday wuxuuna u talaabay xadka Kuuriyada waqooyi taliska qaramada midoobay oo ah magaca ay ku howlgalaan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay rajeynayaan soo celinta Travis King mas'uuliyiinta Talyaaniga ayaa ansixiyay in dalka Argentina loo gacan galiyo wadaad lagu eedeeyay inuu gacan saar la lahaa dawladii militariga 40 sano ka hore Franco Reverberi oo 85 jir ah waxa dalka Argentina uu ka ahaa wadaad isla markaana askari ah waxa lagu eedeeyay inuu siinayay gacan askar afduub iyo jirdil u geysatay dad ka soo horjeeday intii uu socday waxa loo yaqaano dagaalkii xumaa waxa sidoo kale lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay dilka nin 22 jir ah Argentina ayaa raadinaysay in loo soo gacan galiyo wadaadkan tan iyo markii uu baxsaday dhanka Talyaanigana uu waaday ilaa 30,000 oo qof ayaa la dilay ama la waayay intii ay jirtay dawladii militariga ee Argentina taasoo soo ilaatay sanadkii 1983
qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa fuulay saqafka sare ee guriga ra-iisul wasaaraha Britain ee waqooyiga Ingiriiska si ay uga mudaharaadaan siyaasadda ra-iisul wasaare Sunak ee shidaalka. Mudaharadayaasha ururka nabadda cagaaran ayaa dhinacyada saqafka dhismaha ka lulay calala madow. Rishi Sunak ayaa toddobaadkan ansixiyey boqolaal shatiyo ah oo lagu soo saarayo saliid iyo gaas hor leh oo laga helay dhanka badda waqooyi ee boqortooyada, taas oo ka cadhaysiisay qolyaha u dooda badqabka deegaanka. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ku adkaysanaya in shatiyadu ay laga maarmaan u yihiin xaqiijinta amniga tamarta. Ra-iisul wasaare Sunak ayaa hadda fasax kula maqan qoyskiisa gobolka California ee dalka Mareykanka. Ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa ku eedeeyay dowladdu inay burburisay dimuqraadiyadda ka hor doorashada guud ee dhici doonta bilo gudahood. Waxa uu BBC-da u sheegay in dalku uu galay xaalad madow. Isaga oo ka hadlayay gurigiisa magaalada Lahore ayuu Imran Khan sheegay in doorasho xor iyo xalaal ah oo keliya ay dib u soo celin karto xasiloonida Pakistan. xukuumaddan macangaga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa burburinaysa xorriyadda madaniga ah waxay ka cabsanaysaa doorasho. sababta la ii silcinayo ayaa ah inay og yihiin in doorashada aan ku guulaysanayno shaki la'aan, taas awgeedna waxay duminayaan dimuqraadiyaddeenna. ugu dambayntiina warbaahinta dowladda dalka Iiraan ayaa sheegtay in dalkaasi uu yeeshay maraakiib cusub oo ay ku rakiban yihiin gantaallo gaaraya masaafo dhan 600 oo kilomitir. maraakiibta ayaa waxaa soo bandhigay ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan xilli ay dhoolatus ka sameynayeen xeebaha Abu Muusa oo ah mid ka mid ah 3 jasiiradood ee lagu muransan yahay ee khaliijka. dalalka Iiraan iyo Imaaraadka Carabta ayaa labaduba sheegtay lahaanshaha jasiiradda Abu Muusa iyo sidoo kale labada jasiiradood ee Tumbuda Weyn iyo Tanyar. dhoolatuska militari ee Iiraan ayaa imaanaya 2 toddobaad uun kadib markii Mareykanku uu kordhiyey joogitaanka ciidamadiisa badda ee aagaasi. qiyaastii 5 meelood meel ka mid ah saliidda adduunka ayaa soo marta gacanka khaliijka ilaa iyo badda Carabta. wararkii caalamka ee BBC-da galabnimada waa naga intaas. Kowsar axmed yuusuf cadceed waa u mahadsan yahay. dhegeystayaal markana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabna ee Kenya ayaa sheegtay inay wado qorshe ay dadka deegaanada waqooyi bari uga qayb galinayso dagaalka ay kula jirto xoogagga Al-Shabaab ee weerarada ka geysta gudaha wadankeeda. wasiirka amniga gudaha Kenya Kithure Kindiki ayaa sheegay in qaabka dowladda Soomaaliya ay bilihii dambe ula dagaalameysay Al-Shabaab oo ay u adeegsatay dadka deegaanka ay iyaguna sameyn doonaan. hadalka wasiirka waxaa ka mid ahaa: The solution to the problem in the north is to do what has been done in Somalia. I think that's the best practice we can get, is what has happened in Somalia, where the local community together have decided enough is enough with Al-Shabaab. xalka ku habboon dhibaatada ka taagan waqooyiga dalka ayaa ah in la wajaho qaabka sida ay Soomaaliya samaysay oo ah in dadka deegaanka ay go'aansadeen in ay iska dulqaadaan Al-Shabaab. dadyawgaas ayaa ka codsaday dowladda in ay gacan ka siiso la dagaalanka Al-Shabaab, iyaga ayaana hormuud u noqday dagaalka. waxay ila tahay in jihadaas aan u soconno. taageero buuxda ayaan ka haysanaa madaxda deegaanka iyo bulshadaba, oo waxa ay diyaar u yihiin in aan si buuxda u soo afjarno dhibaatada Al-Shabaab. suuragal ma aha in booliisku ay ilaaliyaan guri kasta. waxaan mar kasta sheegaa in aan ka faa'iidaysan karno xiriirka dhaqan, diin iyo luuqad ee ka dhexeeya shacabkeenna waqooyi bari iyo dadka ku nool gediga kale oo aan siino taageerada dowladda. bilaha soo socda waxaan si buuxda uga adkaan doonaa Al-Shabaab oo waxaan dib u soo ceshan doonaa dalkeenna. It's just a matter of time. In the next few months we will crush all those elements and get our country back. kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha Kenya Kithure Kindiki. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno qorshaha ay damacsan tahay Kenya ayaa waxaan ka wareystay xildhibaan Xuseen Cabdi Barre oo laga soo doorto deegaanka Tarbaj ee ku yaala bariga magaalada Wajeer. fikraddan wasiirkaad ku dhawaaqay oo dadka gobolka ka yimaaday waa inay ka qayb qaataan la dagaalanka Al-Shabaab waa arrin muddo soo socotay oo 5 sano hore lasoo dhaafay iyo gobolka dad ka mid ah raayida keeneen ayaa daba socda. waxayna ku noqonaysaa dadka waa in ay warbixin siiyaan laamanka amniga oo ina kacdoon dhinacooda ka imaaday
si nimankan meel ay ku jiraanba lasoo sheega lana dhahaa dee inagama rabna dhulka wixii caawimaad oo codsadaanna loo diida dowladda laamankeeda amnigana ay u sheegaan meesha ay joogaan iyo yay la tacaamulaan fikradda aada sheega wasiirka waxaa waaye u diyaarsanaanta ama hurdada oo laga kaca shicibka oo ay ogaadaan dhibka ay nimankan wataan oo ayna soo sheegaan iyagana wax gargaar ay u gaarsiin waa meel midda kale oo in lagula dagaalamo la rabo waxaa waaye si hadda u garanaysa nimankan al-shabaab leh ama nimankan argagixisada ah waa niman halgaadiile ah gorilla u socdaan 5-6 ayay u socdaan halkay marayaan dad ay halku arkayaan geesta kale u soconayaan ayagoo yar ayay dad badan iska dhigayeen si ay qalqal iyo cabsi dadka ugu ridayaan marka sidoo rabo waxaa waaye niman yidhi Kenya Police Reserve layidhahda waxaa waaye dad shacabka ka mid ah laakiin ka register garaysan laamanka amniga oo weliba gaar ahaan booliista marka siday nimankan u dhaqanayaan ayaana loola dhaqanaa kuwaas ayaana la isticmaalaa marka ma waxaad ula jeedaa dadka deegaanka iyagu ma hubaysanaan doonaan ciidamadan kaydka ah ee KPR-ta loo yaqaano ayay la shaqayn doonaan sidaas ayayna kula dagaalamayaan al-shabaab miya nacam shacabka caadiga ma hubaysanaanaya hubka waxaa un haysad kartaan kaydka laakiin shacabku waxay ka qayb qaadanaan fajignaan iyo usoo jeedid iyo soo sheegid iyo nimankaan la caawinaynin iyo la shaqaynin laamanka amniga oo wax kulli loo sheegay shaqadooda intaas ay noqon laakiin nimankan reserve-ka ama kaydka ayaa shaqadaad galayeen ayagoo ina daba socdaayeen korna ilaaliya kor ay ka socotaan hawada askarta caadigeed laakiin nimankan waa niman yar dad yar oo ayagana daba galo meel ay galaan la daba galaan oo la dagaalamana dhulka ka bixiyaan wixii dagaalkeedana dilaan wasiirka taa ayuu kala jeedaa waa tahay al-shabaab markaan eegno gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee Kenya fariisimo gaar ah oo la yaqaan kuma laha sida Soomaaliya oo kale marka Kenya sidee rabtaa inay kula dagaalanto al-shabaab wallahi si kale looga dagaalamo ma lehe waa sidaan ku sheegay wacyigelin oo shacabka la siiyo oo la ogaado dadkii la shaqaynaa mise u meel ay kusoo hirinayeen loogana digo ninkii haddaan ka wargalana oo asana in amni la siiyo rabana la siiyo wax amnesty la dhahaa ood ka soo baxa ninkii ku adagna isagana sharciga dowladda la mariya sidaas ayaa loola dagaalamaa laakiin waxaan ku sheegaa arrinta weli waa adagta maxaa aniga xuseen ahaan waxaan u arkayaa waxaan nimankan oo xaggana laga dagaalama Soomaaliya gobolkana lagala wada dagaalama nin raba ay jirin waxay ila tahay dad oo annagana aan u malaynayna inay nala dhinac jiraan oo nala shaqaynayeen oo dalal waaweyn ka yimid ayaa ayagana weli garab siinaya xuseen deegaanka laga soo doortay waxay ka mid tahay deegaanada ay dhibaatada ka geystaan al-shabaab bal waxaad noo sheegtaa saameynta ugu badan ee amni daradaas ay idinku leedahay maxay tahay wallahi nimankan gobolka iyo Horn of Africa kulli dib ayay ka keeneen aniga gaar ahaan markaan ku yaray meesha liiga soo doortay xaduudka ayay u dhowdahay Soomaaliya Wajir South Malirat Wajir East Mandera South oo jiraankeeda xaduudka ayaa khalkhal iyo dib ayay u keeneen waxay keeneen inay cabsidii daraadeed dadkii macallimiinta ahay oo iskuulaha baray oo Soomaalida aan ahayn inay ka soo cararaan oo iskuullada ka soo cararaan oo ay imaadaan meelaha magaalooyinka weyn degmooyinka banaanka ah inay ka cabsadaan dhaqaatiirkii sidaas camal dadkii kale oo horumarkii dhulka laga hagaajin lahayn cabsi daraadeed looga joogo ayay dhulka ku hayaan nimankaana waa niman fikrad weyn oo dad kala gadaal ka wadaan oo gobolka kulli in qalqal la geliya gacan kale ay dhulka qabsato wixii kheyraad kala baxaan ilaa muddo ayay tahay soo dhibka ayaa nagula hayaa dadka deegaanka ma idin muujiyeen inay diyaar u yihiin inay al-shabaab la dagaalamaan amaba ay iska celiyaan dadka naga waa wacyigelinay maalin aan sii dheereen oo 10 biri camal laga joogo wasiirka difaaca iyo xildhibaanayaal kale ayaan wareegaynay oo dhinacan Wajir South ilaa East iyo Tarbaja ayaan ku wareegaynay madaxda Mandera saac camal ayay iyagana ula kulmeen dadkooda iyo governorka iyo MP-yaalka iyo madaxda cusub iswataan aan ku sheegayaa shacabka diyaar ayay yihiin wax information oo qarsoon oo hadda naga qarsoon male kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xuseen cabdi barre oo laga soo doorto deegaanka Tarbaj ee bariga Wajeer oo iga waramayay qorshaha Kenya ee la dagaalanka al-shabaab weli halka aad nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegeystayaal isla wararka al-shabaab ayaan ku guda jirnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug
waxaa ka socda shir lagaga arinsanayo diyaargarowga duulaanka ka dhanka ah al-shabaab ee la doonayo in looga saaro deegaanada ceelgaras, ceelbuur iyo galhareeri. shirka ayaa ujeedkiisa ugu weyn lagu sheegay xasilinta deegaanadaas kadib marka al-shabaab laga saaro. wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo hadda toos ugu jira qadka Lucy Live ayaa inooga waramaya shirkaas iyo qorshaha dowladda ee ku aadan wejiga labaad ee duulaanka la qorsheeyey in al-shabaab looga saaro magaalooyinka ay maamulaan. Ibraahim. kawthar, haddii aan ku horumarno shirka dhuusamareeb wuxuu socon doonaa 2 maalmood. waxaa ka qaybgelaya wasiirro ka tirsan maamul goboleedka galmudug iyo sidoo kale senataro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka isla baarlamaanka federaalka oo deegaan doorashadooda ay tahay deegaanada hadda la doonaya in howlgalka looga dhawaaqo. sidoo kale waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha deegaanadaasi degan. 2 ujeedo ayaa lagu sheegay kulanka. waxaa la sheegay in marka hore laga wada hadlayo sida beelaha deegaanku ay uga qaybgeli karaan duulaanka ka dhanka agagaasi ee la doonayo in al-shabaab uu muddo dheer deegaanadaasi xukumaysay looga saaro, iyo wixii ka dambeeya marka al-shabaab deegaanada laga saaro sidii deegaanada loo xasilin lahaa, qabaa'ilka deegaanka degani ay uga qaybgeli lahaayeen nidaamka dowladnimo iyo kusoo celinta adeega dhulkaasi, iyo sidii dadka deegaanadaasi degan maadaama ay muddo dheer ku hoos noolaayeen al-shabaab wacyigelin loogu sameyn lahaa. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa kulanka furay, wuxuuna sheegay in 2 ujeedo ay kulankaasi ka leeyihiin. kow waa inay dib u xoreyntii aan isugu tagno. maanta waxaan haysanaa fursad weyn, waa loo istaagay, waa loo taagan yahay fayskii labaad ee ka sifaynta haraadiga argagixisada inay dhammaan dhinacyada halkan isugu yimid isu taagaan oo dhaqaaqa iyo socodka iyo gulufka aan ku dhammaystirayno guud ahaan Soomaaliya in looga xoreeyo, gaar ahaana deegaanada ay galmudug uga sugan yihiin, sidii looga qaybgeli lahaa, loo garabgeli lahaa, looga qayb qaadan lahaa si aan kala har lahayn in tashigu taas ku horeeyo haddii la yidhaahdo. iyo 2 sida hore u sheegnay, marka deegaanada laga xoreeyo waa laga xoreynayaa insha Allah, waa hubnaa ilaahay idankiisa. marka deegaanada laga xoreeyo inay deegaanadaasi noqdaan bulshada ku nool noqoto bulsho walaalo ah, wada jirta, horumar iyo horsocod ka shaqeeya, laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa tashiga labaad uu yahay oo laga qayb qaadan lahaa xasiloonida iyo horsocodka deegaanadaas insha Allah. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo ka hadlayay furitaankii shirkaasi marka uu soo dhammaado waxaa laga filayaa ergooyinka iyo xubnaha ka qaybgelaya inay isku raacaan sida deegaanka nabad loogu soo dabaali doono iyo sida looga qaybgeli doono howlgalka ka dhanka al-shabaab. dhinaca kale magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda abaabulkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in deegaanadaasi ceelgaras, ceelbuur iyo galhareeri iyo sidoo kale tuulooyinka hoostaga sidii looga saari lahaa al-shabaab. ciidamo kala duwan oo dowladda federaalka ka ayaa maalmihii ugu dambeeyey tegayay dhuusamareeb, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu halkaasi tago madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ilaaladiisa koofiye casta qaybo ka mid a ay uga sii horumareen dhuusamareeb. waxaa la sheegayaa inuu madaxweynuhu dusha kala socon doono howlgalka la doonayo in bariga gobolka galgaduud looga soo dhameeya al-shabaab. galmudug markaan ka hadlayno al-shabaab waxay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan bariga gobolka galgaduud, gaar ahaan deegaanada hadda aan ka hadlayno ceelbuur, galhareeri iyo ceelgaras iyo wabxo, inkastoo degmooyinka intoodii kale ee hore looga saaray sida ceeldheer iyo masagawaay sidaas oo kale mudug qaybo ka mid ah ayaa horey looga saaray, laakiin weli waxaa jira deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug oo ay weli al-shabaab joogaan. marka dabcan howlgalkan waa gabagabada wejigii hore ee howlgalka ka dhanka al-shabaab oo la doonayo in al-shabaab looga saaro galmudug oo dhan iyo sidoo kale in markaa dabadeed loo gudbo wejiga labaad. laakiin wejigaas labaad dhowr jeer oo hore oo dowladdu ku dhawaaqday ma hirgelin oo ma dhicin. sababta lagu sheegay in arrimo farsamo iyo xilligaba ay yihiin iyo diyaargarowga dowladda. arrimahaasi waxaan goorsii horeysay ka wareystay la taliyaha amniga ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale, waxaana marka hore weydiiyay bal sababaha keenay in dhowr jeer hore dowladdu u sheegtay in howlgalkaasi bilaabanayo waxa uu bilaaban waayay. runtii annaga hadda waa inaan fahamto waxaan ku jirnaa laba shay aan hal shay isla wadnaa. ciidan qaranna waa dhisaynaa
oo ciidan qaran ayaan dhisaynaa dagaalna waa ku jirnaa muhiimadda yani meeshaas tiriga ku jirta waa fahmi kartaa ibraahimow wax Soomaaliya aan weligeed laga qabanay muddo ka yar 7 bilood waxaan ku tababarnay ciidan 12 kun oo ciidan ka badan aan Soomaaliya anagoo dagaalkana ku jirna aan tababarna wadnay marka ciidanka aan tababarnay iyo ciidanka tababarka ku baqan iyo dagaalada aan ku jirno intaba waa hawl aan runtii ciidankaas marka in la tababaro oo la qalabeeyo oo haddana la soo dibadda laga soo celiyo oo haddana koors Soomaaliyeed iyo doctrinka ciidanka loo sax la siiyo oo haddana maxaa la yiraahdaa ciidankaas in meedaanka la geeyo oo haddana maxaa la yiraahdaa intaas oo dhan shaqo sahlan aysan ahayn waa ogtahay oo waliba ciidanka hadda aan qorayna ma ahna waagi hore ciidanka inta la qoro oo hal meel laga qaado la sameeyo ciidankan hadda waxa laga soo xulaa Soomaaliya dhan laga soo xulaa gobol kasta laga soo xulaa ciidan muunad qaran leh oo integrated ah oo tababar fiican la siiyo oo quality-giisa la sameeyay anaga marka waxaan ka fikirayno waxyaalo short term in la aadin waxyaalo oo marka ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo gobolka Soomaaliya laga keenay oo training quality la soo siiyay maadaama askarigan waligiis waa jiri doona maanta waxa laga yaabaa dagaal yar in u baahan tahay marka dhismihii ciidankeena meesha waa ku jira dagaalna waa ku jirtaa galgudud iyo mudug intay uga dhiman yihiin meeqa toddobaad meeqa bilood dadka maxaa u sheegi kartaa oo wajiga koowaad aad ku soo gabagabaynaysaa si aad u gashaan wajiga labaad ee hiiraan galbeedkeeda ama shabeellada dhexe ibraahim dagaalka inaan waqti u qabto ma rabo anagu waa naga serious waa xaalad niman cadow meesha ku jira waa niman meesha meel yar oo kooban ka soo duulaamo weeyaan ma ku dhahay maalin hebel ama taariikh hebel aan maxaa la yiraahdaa aan ka saarayo kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay meeshaas anaga wax walba oo waxaan isugu geerinaynaa ciidankeena inaan meesha ka saarno muhiim ay noo tahay inaan meesha ka saarno waxaan aaminsanahay cadowgu tactically cadowgu meesha uu rabo inuu ku dagaalamo waa meeshaas yartaa يعني هذا مثلا كلام waxaan ku siinaa waxyaalo khibrad aan barano kale yani marka Masaajid Cali Guduud aan ka saarnay Masaajid Cali Guduud si fudud uga bax aadan yabaal iyo nuurnigood aan qabanay laakiin anagu aadan Masaajid Cali Guduud qabanay cadalo laga keenay oo Masaajid Cali Guduud laga qabtay oo nuur duqle iyo maxaliyada ruunnigood iyo la qabtay aadan yabaal ayuu wuxuu galay meel ila juxay meel ila galay juxay inuu laga saaro wixii qaatay isbuuciye qaadatay ilaa duqaan isticmaasheen aan isticmaalno marka yani waa inaan fahamto ka saarista meelaha muhiimka iyo inuu ciidanka meel ku galo laba shay kala tahay laakiin macnaheedu ma aha inuu ciidankeena uusan shaqo qabanin ma aha inaan guul la gaarin macnaheedu ma aha laakiin inaysan meeshaas aysan muddo ku jiri karin ay ku dhuulan karin ma yani intaas oo kale hadda waxaa jirta meel oo mudug oo kale koonfurta mudug oo kale markii ama bariga mudug markii waxaa jirta meel qeeycad la yiraahdo oo bacadweyn iyo wasiil u dhaxaysa waa sax dagaal yani maya godaday ka qoteen waqti dheer ay qaadatay muddo ku jirtay waa sax waxaa jirta marka meelo fara badan oo si istiraatiijiga looga saari karo si fudud iyo meelo waxaa jirta ay waqti ku qaadanayso inay baashi ku jiraan macnaheedu ma marka inay argagixisadu efficient yihiin ma macnaheedu ma waxaad sheegtay in wajigii koowaad gabagabadiisa marka mudug iyo galgaduud laga soo saaray inaad wajiga labaad hiiraan galbeedkeeda shabeellada dhexe galbeedkeeda ilaa bakool marka sida muuqata wajiga labaad southwest qaybo kamida iyo Jubbaland waa laga saaray iyana mar kale noqonaysa dagaalku waa isku xiga haddaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed operation waxay ka fuliyaan baydhabo afkeeda ka fuliyaan maalin dhaweed ciidan badan runtii looga laayay kalsooni waxaan ku qabnaa in si talantaal meel walba dagaalka loo gali karo laakiin runtii meeshan yarta ay godadka ka qoteen oo sida suicide-ka ay ugu jiraan oo ay ugu talagaleen inay meesha waxa jooga ay ku dhameeyaan in la soo afjaro anaga waxaan u arnaa inay priority tahay maxaa yeelay tactically ciidanka waxay u tahay in dhabarka hal dhinac aan dhabarka laga jirin dhinac laga jiro waxaan aaminsanahay meesha markii laga saaro in ay guul daradoodu aysan kala harin aan aaminsanahay anaga tactically dalalka safka hore ee dhowr jeer madaxweynaha shirarkii xamar lagu qabtay Dikaale Kiwi Nairobi kuwi Addis Ababa dhamaantood waxay inay hawlgalka ka soo qayb galaan ilaa hadda ma aragna dhaqdhaqaaqooda marka laga reebo xuduudaha qaar meelaha ee Ethiopia inay dhinacyada xuduudda ka soo gudubtay marka maxaa ku dhacay dalalka safka hore madaxweynuhu waa shir halkan uu qabtay kadib shirar badan waxay ka dhaceen Addis Ababa iyo Nairobi oo mustawaha commanderska ah waa ka go'an tahay dagaalka inay nala galaan run ahaantiina waa dareensan yihiin mushkiladda ay argixisada khawaarijta al-shabaab ay ku hayaan geeska Afrika mushkiladu waxaa jira runtii aan fahmi karno oo aad laftada fahmi karto xilli roobaad lagu jiro hadda oo xilli roobaadka xilliga ugu weyn iyo in la soo dhameystiro qaybtii koowaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laftiisa waa inuu horkaco annaga hadda ma rabno ciidan ajnabi ah inay meel noo xoreeyaan kaliya waxaan rabnaa waa iskaashi heer goboleed ah waa maahane laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markuu soo dhameeyo phase 1ka qaybtiisa inuu asaga horkaco dagaalka iskaashiga dawladahan wuxuu noqon doonaa waxyaalo oo iskaashi technical iyo meelo muayana in la iska garabsado laakiin shaqada heavy lifting waxa la ama shaqada culayska ugu badan cid ay saaran tahay waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii aan aaminsanahay inay ku filan yihiin kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo u waramayay wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan
markana waxaan fursadda siinayaa dhegeystayaasha facebooka tooska inooga dhegeysanaya iyo ra'yigooda ku aadan qodobada ay dhegeysteen ee ku saabsan al-shabaab. baasha xasan cilmi oo hargeysa jooga wuxuu leeyahay dowladda soomaaliya oo madax dhaqameedka qaybo ka mid ah galmudug kala shirayso maamulka deegaanada laga saaraya al-shabaab. runtii waa arrin wanaagsan waxaana loo soo wada jeestay sidii looga saari lahaa al-shabaab wadanka, waana arrin bogaadin iyo farxad u ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan. jaamac maxamed waxa uu joogaa gaashaamo, waxauu leeyahay wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab waxaad moodaa inuu noqday qawda maqashii un. teeda kale waxauu leeyahay maxaa diidaya inay dowladdu si qarsoodi ah al-shabaab u weerarto, waayo iyagu ma sii sheegaan howlgalladooda. way mahadsan yihiin. waa qaar ka mid ah waa ra'yiga qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebooka. weli halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c. waa tahay markana sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen, shacabka dalka Niger ayaa bilaabay inay isugu soo baxaan bartamaha caasimadda Niamey si ay taageero ugu muujiyaan taliska xukunka afgembiga kula wareegay toddobaadkii hore. dalkaas oo maanta laga xusayo sanad guuradii uu xorriyadda qaatay ayaa ururada bulshada waxa ay dadweynaha ugu baaqeen inay cambaareeyaan cunaqabateynta ay dalalka ECOWAS ku soo rogeen Niger. urur goboleedkaas ayaa diidan afgembigii dhacay. axmed badar ayaa noo haya faahfaahinta warkaas. wafdiga ECOWAS ee ku sugan caasimadda Niamey ayaa ah mid ka mid a dadaalada urur goboleedka ugu jiro sidii si nabada xukunka ay dib ugu wareejin lahaayeen saraakiisha afgembiga samaysay. waxaa kulan degdeg ah isugu yimid saraakiisha gaashaandhigga ee dalalka galbeedka Afrika kaasi oo iga wada xaajoonayaan xaaladda dalka Niger. bilowgii kulanka ayaa saraakiisha difaaca ee galbeedka Afrika ay ku yeesheen caasimadda Nigeria Abuja ayaa gudoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka Abdul Fatawa Musa waxa uu sheegay in adeegsiga awood ay tahay tillaabada ugu dambeysa ay qaadi doonaan. waxa uu intaa ku daray in mar waliba ay doorbidayaan in si nabada xaaladda lagu dhameeyo. haddii aan si nabad ah ku shaqayn karno iyo nidaamka dastuuriga ee dalka waa sidaa waxa aan doonayno, waana taa khiyaarka aan doorbidayno, laakiin waa inaan u diyaargarownaa dhammaan xaqiiqooyinka. waxaan halkan u joognaa natiijada ugu dambaysa. waxa ugu dambeeya ee aan miciin bidi doono waa faragelin ay tahay suurtagal si loo soo celiyo nidaamkii dastuuriga ahaa. urur goboleedka ECOWAS ayaa horay u sheegay in muddo toddobaad ay siinayaan madaxda cusub ee Niger si talada ay dib ugu celiyaan madaxweyne Mohamed Bazoum. balse taliyaha ciidamada Nigeria Christopher Musa ayaa kulanka ka sheegay in dalalka Afrika ay tahay in si wada jir ay uga jawaabaan afgembiga. waxa uu farta ku fiiqay in arrinta Niger ay u baahan tahay jawaab wada jira oo Afrika ka timaada. dhacdooyinka ka dhacay mid ka mid ah waddamadeenna 26 Juulaay 2023 waxay qayladhaan u dirtay xuduudaheenna dhammaanteenna wayna saamaysay. inqilaabkii dhowaan ka dhacay jamhuuriyadda Niger waa dhacdo ku baaqaysa in si wada jir ah looga jawaabo. waa in aan wajahnaa caqabadaha dib u soo celinta maamulkii dimuqraadiga ahaa ee Niger innagoo ka faa'iidaysanayna waayo aragnimada, xigmad iyo go'aan wada jirana qaadanayna. dhanka kale magaalooyinka waaweyn ee dalka Niger ayaa waxaa soo food saartay gabaabsi dhanka korontada ah kadib afgembigii toddobaadkii hore ka dhacay dalkaasi. koronto yaraanta ayaa ka dhalatay kadib markii Nigeria ay jartay korontadii ay siin jirtay dariskeeda sida ay sheegtay shirkadda korontada ee dalka Niger. ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS ayaa cunaqabateyn ku soo rogay Niger, laakiin ma aysan sheegeen in waxyaabaha laga jarayo ay ka mid tahay korontada. dadka ku nool magaalooyinka Niamey, Maradi iyo Zinda ayaa waxay korontada u joogtaa ku dhowaad 1 saac ka hor inta aan la damin, markaasi oo ay maqnaato 5 saacadood. dalka Niger ayaa waxaa si aad ugu tiirsan yahay dhanka korontada dalka dariska la ee Nigeria. axmed badar waa mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee dalka Niger oo dhowaan uu afgembi ka dhacay. dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dunida iyo maanta. sidoo kale waxaad naga heli kartaan bogga internetka ee bbcsomali.com halkaas oo aanu ku daawacnay sheekooyin
iyo warbixino kala duwan oo aad halkaasi ka akhrisan kartaan. Ha yeeshee saacadda Afrikada Bari waxa ay ku sii siqaysaa haatan 5:00 galabnimo. xiliyadan oo kalena waxaad nooga barateen inaan dib idinkugu celinno qodobada wararka caalamka ee BBC-da. Stuudiyaha waxaa mar kale igula soo biiray oo warkaasi noo akhrinaya Axmed Yuusuf Cadceed. muwaadiniinta dalka Niger ayaa bilaabay inay isugu soo baxaan fagaare ku yaala bartamaha magaalada Niamey ee xarunta dalkaasi si ay uga mudaharaadaan ama ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan afgembiga militari ee toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacay. isbahaysiga ururada bulshada rayidka ayaa ku baaqay in dadku ay maalinta sanad guurada xornimada dalka isugu soo baxaan si ay u cambaareeyaan cunaqabateynta uu dalkooda ku soo rogay urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS. ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay Kuuriyada Waqooyi kala xaajoonayaan soo celinta mid ka mid ah askartooda kadib markii Pyongyang ay qiratay markii ugu horeysay inay gacanta ku hayso askariga oo lagu magacaabo Travis King. waxa uu bishii hore ka tallaabay xadka aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya labada Kuuriya. mas'uuliyiinta Talyaaniga ayaa ansixiyay in dalka Argentina loo gacan geliyo wadaad lagu eedeeyay inuu gacan saar la lahaa dowladdii militariga 40 sano ka hore. Franco Rivaberi oo 85 jir ah waxaa dalka Argentina uu ka ahaa wadaad isla markaana askari ah. waxaa lagu eedeeyay inuu gacan siinayay askar afduub iyo jirdil u geysatay dad ka soo horjeeday intii uu socday waxa loo yaqaano dagaalkii xumaa. qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa fuulay saqafka guriga ra'iisul wasaaraha Britain ee waqooyiga Ingiriiska si ay uga mudaharaadaan siyaasadda ra'iisul wasaare Sunak ee shidaalka. mudaharaadayaasha ururka nabadda cagaaran ayaa dhinacyada saqafka dhismaha ka lulay calala madow. Rishi Sunak ayaa toddobaadkan ansixiyay boqolaal shatiyo ah oo lagu soo saarayo saliid iyo gaas hor leh. ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa ku eedeeyay dowladdu inay burburisay dimuqraadiyadda ka hor doorashada guud ee dhici doonta bilo gudahood. waxa uu BBC-da u sheegay in dalku uu galay xaalad madow. isagoo ka hadlayay gurigiisa magaalada Lahore ayuu Imran Khan sheegay in doorasho xor iyo xalaal ah oo keliya dib loogu soo celin karo xasiloonida Pakistan. warbaahinta dawladda ee dalka Iran ayaa sheegtay in dalkaasi uu yeeshay maraakiib cusub oo ay ku rakiban yihiin kataallo gaaraya masaafo dhan 600 oo kiiloomitir. maraakiibta ayaa waxaa soo bandhigay ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran xilli dhoolatus ay ka sameynayeen xeebaha Abu Musa oo mid ka mid ah jasiiradaha ay ku muransan yihiin dalalka khariijka. dalalka Iran iyo Imaaraadka Carabta ayaa labaduba sheegtay lahaanshaha jasiiradda Abu Musa iyo sidoo kale jasiiradda Tumbuteweyn iyo Tanyar. dhoolatuska militari ee Iran ayaa imaanaya 2 toddobaad kadib markii Mareykanku uu kordhiyay joogitaanka ciidamadiisa badda ee aagaasi. hagaag Axmed Yuusuf Cadceed oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC-da xilligan la joogo. goordhow qodobada aad maqli doontaan waxa ka mid ah safarkeenu ujeedadiisu wuxuu ahaa inaan la kulanno jaariyadda ka soo jeeda dowladdeegaanka Soomaalida sidoo kale inaan soo wareysano inaan maaragtay talada iyo tusaalaha iyo weliba fursadaha ka jira deegaankeena aan isweydaarsanno mustaqbalkana aan xiriir wanaagsan yeelano oon fursadaha jira deegaankeena si loo baahnaa ay uga faa'iideystaan. waa wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku sugan dalka Mareykanka. goordhow ayaad maqli doontaan ujeedka safarkooda. hase yeeshee markan madaxa laanta ka hortagga argagixisada Britain Matt Jukes ayaa BBC-da u sheegay in tiradii ugu badnayd ee dhalinyaro ah ay ku socdaan baaritaan la xiriira falal argagixiso. sanadkii la soo dhaafay laamaha ammaanka ee UK ayaa qabtay 166 qof oo lagu eedeeyay in ay maleegayeen falal argagixiso. 20% dadkaas ayaa ahaa dhalinyaro ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir. haddaba arrimahaas ayaa waxaan ka waraystay Maxamed Nuur Qaliimow oo falanqeeya arrimaha UK iyo caalamka. warbixintan uu siiyey dowladda Matt Jukes oo madaxa la dagaalanka argagixisada waa arrin runtii ku soo kordhay dhalinyarada waddankan Ingiriiska qaasatan kuwa ka hooseeya 18 kuwaasoo in badan uu sheegay in waagii hore ay aad ugu yaraayeen ku biiritaanka qolooyinkan xagjirada ah sida kuwa muslimka ama kuwa la yiraahdo right wingiga oo waddankan ka jira oo la dagaalama ama nacayb u muujiya dadka ajaanibta dadka kalarka
iyo muslimkaba marka madaxa wuxuu leeyahay Mr. Mattis in badan ayay kor u kacday waagi hore wuxuu yiri dadka arrimahaas lagu soo eedeeyo ama lagu tuhumo boqolkiiba 4 wax ka hooseeya ay ahaan jireen laakiin hadda waxaad moodaa yiraahdeen dadka da'doodu 18 ka yar tahay inay arrinkan ku soo zaa'ideen oo hadda ay marayso boqolkiiba 20 dadka arrimahaas lagu eedeeyo marka maxaa keenay in dadka da'yarta ah ay ku bataan falalkan xag jirka ah madaxa la dagaalanka argixisada waxa uu sheegay in fikirkani ay ka helaan ama laga tashkiiliyo online-ka ama baraha bulshada halkaasna ay tahay meesha dhalinyarada laga soo raaco iyaga oo marka hore tashkiilin iyo waxyaabo noocaas ah iyo website-yo ay qolooyinka xagjirada ay leeyihiin hadday noqon lahaayeen kuwa muslimka iyo hadday noqon lahaayeen kuwa la yiraahdo right wing oo wadankan ka dhisan Ingiriiska oo nacayb badan u qaba dadka ajaanibta ah dadka kalarka iyo dadka muslimka ah labada dhinacba way jiraan oo da'yartoodu way ku biiraan oona kor ayay u kacday ayuu leeyahay oo hadda ilaa 20 ay maraysaa waagi hore waxay ka hooseyn jireen yiraahdeen dadka waxaas lagu eedeeyo dadka da'doodu 18 ka yarta 4 laakiin hadda waxay yiraahdeen aad bay u kordheen taasoo walaac badan ay ka muujisay dawladda Ingiriiska taasoo ku wargeliyay hay'adaha ku shaqada leh oo asagaba kamid yahay iyo kuwa dawladda marka waxay leeyihiin dhalinyaradaasi barnaamijyo ay sameeyeen ay leeyihiin ka hortag sida ognahayna wadankan waxa sharci ah oo waliba khasab ku ah goobaha waxbarashada sida iskuulada collegeada universitieska jaamacadaha inay soo sheegaan dhalinyarada ay ku dareemaan inay yihiin niman dhinaca xagjirnimada u sii fogaanaya ama qowl ahaan ha ku ogaadeen ama ficil ahaan ha ku ogaadeen marka waxay leeyihiin arrintaasi kor ay u socotaa da'yarta oo ku sii beeraysa xagjirnimada iyo gruubada xagjiriinta ah sida kuwa muslimka ama kuwa kaleeta ee galbeedku ay leeyihiin right wing-ga la yiraahdo oo nacaybka dadka ajaanibta qaba marka waa arrin dhiila leh isla markaasna ku soo korodhay una baahan in wax laga qabto ma la ogyahay dhalinyaradan meelaha ay ka soo jeedaan ama qowmiyadahooda run ahaantii kuwa right wing-ga ah badanaa waa dadka cadaanka ay u badan yihiin oo nacaybka dadka kale ee ajaanibka u qaba oo ayagana ku biirayo kooxaas xag jirka ah kuwa muslimkana badanaa waxay u badan yihiin dadkan maaragtay muslimka ka soo jeeda dhinacyo badan leh Asian leh oo Afrikaan leh oo cid walba leh marka waxay leeyihiin kordhistaas ay kordhayaan ayaa walaac weyn aan ka muujinaynaa isla markaasna ay tahay hawl badan laga qabto xitaa mashruuc yani looga hortagayo ayaa la sameeyay oo lagu maaragtay wacyigelinayo dhalinyarada ee ay qolooyinkaas tashkiiliyeen iyagoo ka helayo online-ka baraha bulshada marka waa hawl yani ay leeyihiin haddaan wax laga qaban ay arrintan sii kordho waliba da'yartu ay arrinkan aad ugu soo biiraan dhibaato badan ay mustaqbalku keeni kartaa oo dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo in ay kordhaba dadkii xagjiriinta ahaa taasoo labada dhinacba dhibaato ku ah kuwa ajaanibka nacab iyo kuwan muslimkaaba marka waa arrin ay leeyihiin waxa laga qabto hawshaan hawl yani dadkii lagu wacyigeliyay oo media laga sheegay oo dadka waalidiinta xitaa in caruurtooda dhalinyaradoodu ay isha ku hayaan la leeyahay si early looga hortago waqti hore intaanay ku fogaanin waayo waxay yiraahdeen ka hortaga ayaa ka wanaagsan hadhow qofku markuu aad u dhex galo marka haddii ay arkaan in fikir xag jira uu ku hadlayo kale ama ficil ahaan qaar baa jira oo ficil ahaan u muujiyo oo warqada leaflets ay ku qoran yihiin nacayb ama markaa muslimka ka soo jeeda ama ka soo jeeda dhinaca kale ay dadka u qaybiyaan ama meelaha collegeada ama iskuulada ay dhigtaan marka lagu arko kale in iskuulka uu soo report gareeyo iyo collegeada iyo meelaha ay dhigtaan waalidku haddii arkeen caruurtoodu ay xagjirnimo iyo wax uun ay sii maaragtay sii dhexgelayaan inay early soo sheegaan si looga hortago mashruucaas loogu talagalay ka hortaga oo wax uga qabto si isha loogu haayo dhibaato intuuna geysan ama aanu kusii fogaanin marka walaac intee la eg ay arrintan ku yeelan kartaa amniga dalka run ahaantii amniga dalka qalqal weyn ayay gelin kartaa waad ogtahay mararka qaarkood ay samayn jireen xagjirnimada kuwa maaragtay ku sifoobay qaraxyo ama dhibaatooyin ama ha noqdeen kuwan right wing-ga oo inta banaanbaxyo usoo baxaan dadka dhibaateeya oo wadooyinka xirta oo balaayo sameeya iyo kuwa muslimka mararka qaarkood ba qaraxyo geysan jiray marka waxay leeyihiin haddii aan dhaqso eedhay waqti hore aan wax laga qaban waxay ku tegi kartaa in dhalinyarada ay ku fogaadaan oo dhibaatooyin shacabka wax gaarsiiya dalka yani wax u dhima inay la yimaadaan marka waxay hadda qorshahoodu wuxuu yahay inay ka hortagaan si kordhidaas ay kor u socdaan oo hadda 4% ay ahaan jireen hadda waxay gaareen ilaa 20% dhalinyarada ka yar 18 marka waxay leeyihiin badashadaas ay dhalinyarada waliba aad u daayar ay ku badanayaan xagjirnimada dhibaato badan ay mustaqbalka u keeni kartaa dalka kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha UK iyo caalamka kale oo ii waramayay markana madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa galinka dambe ee maanta lagu wadaa inuu ka soo hor muuqdo maxkamad ku taala caasimadda Washington isagoo loo haysto inuu rabay inuu wax ka bedelo natiijadii doorashadii looga guuleystay 2020
Trump ayaa kiiskan ku tilmaamay mid muujinaya musuqmaasuq fadeexad iyo guuldarada uu Mareykanka ku hogaamiyey madaxweyne Joe Biden. waa sida uu hadalka u dhigaya. Faarax Lamaane ayaa inoo haya faahfaahinta warkaas. amniga magaalada Washington ayaa aad loo adkeeyey iyadoo lagu wado maanta dhageysiga maxkamadaas inuu ka dhaco. Mr. Trump ayaa hore waxa uu u wajahayay 2 kiis oo dambi isagoo markaasi ololana ugu jira in sanadka soo socda uu ku soo laabto aqalka cad. laakiin kiiska doorashada ayaa waxa uu ahaa ee lagu eedeeyey maalintii Talaadada ahayd kii ugu weynaa waa sida loo arkay ee uguna darnaa kiisaskii Trump lagu soo oogay. qoraal uu soo dhigay barta la yiraahdo Truth Social ee Trump uu leeyahay Arbacadii shalay ahayd ayuu ugu mahadceliyey Trump dadka isaga taageera waxaana uu yiri taageeradan oo kale weli ma aanan helin. qoraal kale ayaa waxa uu markaa ku weeraray ninka ay xisbiga Republicanka ku wada jiraan waa Ron DeSantis iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence. waxa uu ku celiyey doodiisa ah in Pence uu lahaa awood uu markaasi dhinaca sharciga ku joojin karay Kongareeska oo uu kaga joojin karay inay ansixiyaan guushii madaxweyne Biden ee 6 January 2021. dhageysiga ayaa waxaa la sheegayaa in ay qaseen taageerayaasha Trump oo markaasi banaanbax ku sameynayay dibadda xarunta US Capitol la yiraahdo. Trump oo 77 jir ah waxaa la filayaa in qof ahaan uu soo hor istaago maxkamadda federaalka ee Washington Khamiista maanta ah saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 11 habeennimo oo u dhiganta 4 galabnimo ee xilliga Mareykanka. magaaladaas Trump waxa uu booqday mar qura tan iyo markii uu ka tegay aqalka cad. safaf dhaadheer ayaa waxa ay bilowdeen Arbacadii shalay ahayd kuwaasoo markaasi lagu arkayay dibadda dhismahaas. waxa uu wajahayaa 4 qodob oo ay ku jiraan mu'aamarad, wax isdabamarin, is-hortaag dadka markhaatiga ah iyo mu'aamarad ka dhan ah xuquuqda muwaadiniinta. qareennada Mr. Trump ayaa waxa ay sii bidhaamiyeen istaraatiijiyadda xagga difaacooda. John Loro oo ka hadlayay TV-ga NBC la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in ay ku doodaan in sharciga markaasi xuquuqda xagga hadalka ah uu ilaalinayo Mr. Trump kaasoo markaasi lagu qeexay qodobka ugu horeeya ee dastuurka Mareykanka ee la yiraahdo First Amendment. waxa kale oo iyagana la dhageysan doonaa dacwadooda dhowr qof oo kale oo wax laga saarayo qalalaasihii ka dhacay dhismaha US Capitol. Trump horeba waxa uu u wajahayay kiisas kale waxaana ka mid ah qaabkii uu markaasi u maareeyey faylal aad sir u ahaa oo uu ka soo qaatay aqalka cad xilligii uu ka tegayey iyo sidoo kale ka been sheegid taariikhda lacago uu bixiyey si markaasi uu u qariyo lacag la sheegay inuu siiyey gabar jisha filimada galmada. dacwad oogayaasha Georgia ayaa waxaa laga yaabaa in dacwado dembiilanimo ay ku soo ogaan Mr. Trump bishan aanu ku jirno kuwaasoo la xiriira natiijadii doorashadii 2020 ee gobolkaas. Faarax Lamaane oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararka la xiriira dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. wali halka nagala socotaana waa BBC. ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad-deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo ay ku jiraan dhowr wasiir oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda ayaa ku sugan dalka Mareykanka. ujeedka ay halka u tageen ayaa ah sidii ay maalgasho isugu jira beeraha iyo warshadaha wax soo saarka ugu soo jiidi lahaayeen deegaankooda. mas-uuliyiintaas ayaa jaaliyadda deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka kulamo la qaatay. haddaba wariye Siyaad Siciid Saalax ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka dowlad-deegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan oo ka wareystay ujeedka safarkooda. safarkeenu ujeedadiisu wuxuu ahaa inaan la kulanno jaaliyadda ka soo jeeda dowlad-deegaanka Soomaalida sidoo kale inaan soo wareysano inaan maaragtay taladii iyo tusaalaha iyo weliba fursadaha ka jira deegaankeena aan isweydaarsanno mustaqbalkan aan xiriir wanaagsan yeelano oon fursadaha jira deegaankeena loo baahnaa ay uga faa'iideystaan. waxaad dhawaan soo hadal qaaday maalgashi inaad ka rabtaan qurba joogta inay wadankii ku soo celiyaan. waa noocee marka maalgashiga aad qurba joogta ka doonaysaan ama aad ka rajaynaysaan? wadanka isbedelka ka bacdi
waxaa ka jira waddanka Itoobiya si guud furfurnaan dhinac kasta ah, dhinac siyaasadeed iyo dhinac horumarba. Sidoo kale deegaankeena waxaa ka hana qaaday horumar aad u ballaaran hadda. Deegaankeenu waa deegaanka ugu nabadaysan tahay oo sabab u noqotay dad badan oo qurbaha ku nool inay daneeyaan, ay deegaanka yimaadaan, ay maalgashadaan. Maalgashiga baan xoogga saarnay in sidii loo baahnaa aan maaragtay dadkeenu uga faa'iideystaan, deegaankuna si guud uga faa'iideysto. Marka maalgashigan hadda ku tala jirno in dadka aan ku dhiirigelino oon deegaan ahaan kusoo jiidanayno dhanka maaragtay beeraha oo fursad aad u ballaaran deegaankeena ka jirto. Dhul aad u ballaaran aan leenahay, dhul ka badan 10 milyan oo hektaar oo la beeri kara ayaa jira. Waxaan leenahay webiyaal socda waqti kasta aanu beer ahaan isticmaali karno. Shacab iyo dhalinyaro badan oo diyaar u ah baa jira. Marka fursadaha in sidii loo baahnaa looga faa'iideysto ayaa loo baahan yahay. Marka arrinta koobaad waa beeraha, arrinta labaad waa warshadeynta. Warshadeynta laftigeedu fursad aad u weyn baa ka jira deegaankeena. Waxyaabo badan oo hadda ka hor sixir barar keeni jiray oo waddanka dibadiisa ka soo gashanaa jira. Marka taa inaan waddanka gudihiisa aan ku samayno warshadaha xooga waxaan saarnay dhowr meelood in warshadeyn aanu ka samayno oo zone industry zoneyaal aanu ka samayno. Marka taa waa maalgashiga aan ku tala jirnay ka mid tahay. Arrinta kale saddexaad waxa weeye maalgashiga dhinaca serviceka ama adeega bulshada sida hoteelada, dhakhtarada iyo iskuulo maaragtay caalami oo bulshadeenu wax ku baran karaan inay dadkeenu maaragtay invest gareeyaan. waa gartay mudane madaxweyne ku-xigeen waxaan joogay 2 kulan oo aad u qabateen bulshada. idinku waxaad ka hadlayseen horumarka iyo nabadgelyada deegaanka ka jira. jaaliyadda halkan iyaguna waxay su'aalo ka qabeen dhacdooyin deegaanka ka dhacay. marka labada arrin sidee loo kala tabanayo la isugu keeni karaa horumarkii iyo tabashada ee jaaliyaddu qabto? Siciido waa runta dadku marka uu kulmayo ugu horeyso ama bilow leeyahay xogta marka la isoo adeersado ka bacdi dhacdooyinka ama waxa qofka maskaxdiisa ku jirta ayuu bilowga ku weydiinaya. markaad ka jaahil tirtid ee xogta is weydaarsadid ka bacdi ba arrimaha kale ee labaad ee soo raacaya ee aan isla qaadanayna inta badan. marka dhacdooyinka laga hadlayo waa iska normal weeye. deegaankeena markaan ku jiro meel kasta oo tagno waxyaabaha way jiraan. adduunkana meel kasta ka dhaca dhacdooyinka nooca sidii loo baahnaa in loo maareeyo oo wax laga baran karo oo laga gudbo wajiga kale loo gudbo baa loo yaa muhiima. marka waxyaabaha inoogu muhiimsan dhacdooyinka inaanu ku mashquulno maaha. waa run oo way iska jiri karaan meel kasta, laakiin in laga gudbaa loo baahan yahay, in la maareeyo laga gudbo. adduunkoo dhan waxaa hadda ka jira sicir barar oo noloshii saameeyey xitaa dalkan Mareykanka aan ku noolnahay. dowlad deegaanka aad ka timid oo aad tahay mas-uulkiisii labaad siduu u saameeyey iyo maxaa qorshayaal oo jira sicir bararkan oo adduunka saameeyey xaggiina? oo ina saameeya waliba annaga waxay noo dheer wax soo saarka waddanka gudihiisa oo sidii loo baahnaa wax loo soo saarin. deegaanka sidoo kale wax soo saarkiisu aad u liita iyo sixir bararka adduunka ka dhacay labaduba wayna saameysaa. sixir barar la xiriira cunooyinka iyo sixir barar la xiriira ama la xiriirin cunooyinka labaduba wayna saameysaa. inta badan deegaankeenuna wuxuu ku tiirsan yahay wadannada jaarka dhinaca maaragtay cunooyinka ama qalabyada kala duwan ee isticmaalayno. marka si guud saameynta ay way jirtaa. culays badanna wuu keenay shacabka. dhowr arrimood baan isku dayaynaa inaan kaga hortagno. kow waa inaan wax soo saarka deegaanka gudihiisa aanu kor u qaadnaa. marka tahay waxa weeye waa waxyaabaha aanu maaragtay sixir bararka aan kaga hortagi karnay ka mid tahay. arrinta kalena waxa weeye inaan magaalooyinka ama meelahan wax ka soo saarayna iyo meelaha ay dadku isticmaalkiisu aad u ballaaran yahay ama aad u weyn yahay inaan isku xidhnaa loo baahan yahay. kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Ibraahim Cismaan oo ujeedka safarkooda Mareykanka ugu waramayay Siyaad Siciid Saalax. ciyaarihii ay noo soo socdo balse markan suugaanta oo xaalado iyo dareemo badan lagu soo bandhigo. waayaha jacaylka ayaa ka mid ah fariimaha ugu badan ee lagu tabiyo. inta badanna waxaa halabuurkooda curiye rag dhadhamiyey ama soo dhadhamiyey qaraarka ama macaanka kalgacaylku leeyahay ama ay uga warameen dad la soo kulmay wejiyada kala duwan ee jacaylku. hadda iyo horeyba way yaryihiin dumarka suugaantooda ay dhaafto dariskooda iyo asxaabtooda. Sahra Xasan Daahir oo ah gabar dhalinyaro ah oo Hargeysa ku nool ayaa ka mid ah shakhsiyaadka darbiga ka gudbay ee suugaantoodu durugtay. waxayna inta badan mansooyin ka samaysaa qisooyin jacayl
oo ay uga warameen dad abwaanimadeedaas awgeed uga xog waramay xaalkooda si ay wax uga tiraahdo arrimaha. Sidiiq Burmad oo ah wariyaha BBC ee magaalada Hargeysa ayaa Sahra la kulmay kalana sheekaystay gabayadeeda wada jacaylka ah. waxani waa hibo qofka ku jirta, hibana lama qarin karo. marka anigoo yar baan isku arki jiray inaan wax baran karo, xitaa markaan iskuulka dhigan jiray inaan erey isu geeyin karo ama hees oo kale ku looqayn karo. marka hore niyadeeda waxa ku jirtay fanaanad bad noqon karta. markii dambe aan ogaaday inaan hal abuur noqon karo. marka sababtaas keentay inaan ugu banaanka soo saaro aniga jeclaystay. ma xasuusataa suugaantii kuugu horeysay samaysay? waan xasuustaa maansayro bilan loo odhan jiray bay ahayd, qosayro la iga sheekeeyay markaan ka urey. bal wax nooga sheeg. waxay ka bilaabmaysay imka wada xasuusto bir hore ahayd, laakiin naf yahay bugteen bogsooni, naf yahay caashiq u bisleeyay, naf yahay kalgacayl ku baahay, naf yahay boholiyo la taahday, naf yahay waagi bariyaysa inta booda aamusayn. saa ka mid ah suugaantaada intaan ka arkay waxay u badan tahay jacayl, aad muddo weliba jacayl dhaba oo qofka dhegeysta saa u maanqaadaysa. waayo aragnimada intan leegee jacayla xageed ka keentay se mise adigu kula soo darsay? kolley lama odhan karo imka qof baa jacaylka maran, waxna waan ka arkay. qof kastoo markaa aniga dad baa jirta iiga sheekeeyay qisooyinkooda. markaa qof kastaa markuu qisadii ila wadaago aniga sibay ii taabataa, si aniga yacnihii taydii oo kale ah. marka sababtaasa keenaysa inaan qofkan dareenkiisa wax ka curiyo. bal qaar aad wax ka samaysay sheekooyinkoogii ma haysa? wiil baan markaa isaga sheekeyru ila wadaagay. gabadh bay adigu muddo 2 sano iyo bar meelahaas malaas jeclahay. dadku markay inta badan isdaba jiitamaan wixii uu dhabaqaayo wala isnacaya bal xisadhaya. marka gabadhii baa agajiid bilowday inuu telefoonka ka garaaco markasta ay telefoonkii qaban weydo. qofka markaad hal mar wacdo qofkan hadduu ku qiimeynayo markuu arko miskoolkaaga ku soo celinaya. haddaanu ku rabin ilaa 5 jeer haddaad wacdo kugu soo celin waayo ka war. adigina aanad damiir balahayn markasta ku celinayso. aanad hari karin. ma hari karaysid. habeenada qaar wixii soo garaaci jiray 3 habeenimo anoo hurdadii oran jiray ma seexan karo. telefoonkii way ku hadlaysaa igana qabanayso. marka miskoolkayga xataa deerta ma qabanayso. yacni anigu habeen walba talwi soo weydiisan jiray. marka maasadani waxay odhanaysaa haddii aan dhabbada maalin cagta dhiga dariiqeeda oo aan dhaqaaq maaga si aan kaaga dheeraado ma dhammo awoodeydu kuma dhacaynaan jiisto. dhaawaca dareenkaygu dhuux iyo lafaa hoose iyo dhudaha beerkayga wadnuhu dhex yaalayo dhayalkuuma daba joogo. noloshayda dhiciddeeda iyo sii dhisnaanteeda adigaa u dhidib aasi kuu dhiibay taladeeda. dhab jacayla weeyaani noloshuba dhalaal muuqda dhadhan male la'aan tahay intaan dhimasho doormooday tiro kuma dhammaynaayo. sida dhilla lay sheegay dhabannada gacmaha saaray u dhegtaagay hadalkaaga telefoonka dhiciddiisa iyo sugay dhambaalkaaga habeenkoo dhexdii jooga ina dhaafay badidiisa adigoo hurdada dhaaftay dhaxmaha wareegaysta. qalbi aad u tahay dhaymo nolol aad dhammayskeeda tahay udub dhexaadkeeda iyo dhaayo araggaaga dhugashada ku daawooba dhaqsi iilka hawgeyn. ha dhambalin wanaageenni ha dhantaalin samaheenna dhexda nacabka hawgeynin ufashada ka daabeerka. dhakafaarka ruuxdayda kalgacaylkan dheeraaday anna dhamacda ii oogay dhanna ii kaxayn waaye igu noqoy dhabacal caash. inkastoon lahaa dhowro sida sibi dhallaan oo yar dhabta saaro oo daawo rajo dhimatay weeyaani sida dharab ku yaalgeeda dhalanteedku waa meel fog. dhabarjebintu waa naare dhaaxaan runtiiyo dowga dhabta kula dul taagnaaye. intaan waano kuu dhoobay dhagax way burburin leyda kuma kala dhawaaqay. inta ruux dhigaayo sanduuqa iyo arlada jooga dhammaysoo qofnimo buuxa dhalashana aan kaa liidan waxaan kuugu dhalolaayay inaad dhaadi garan maayo. is adkaynta kuma dheefo dharaaraha xasuustaada qalbigayga kama dheego kuma dhiiran kara saacad dhinac kale inaan aado. inkastoon dhur suga waayo eed iyo dhaliil qaad dhacdo iyo layaab weeye dhaqashada qofku u baahan iska dhici inaad maagto. dheeliga jacaylkeenu dheeliyo ciyaar maaha. si kastood dhib ula maagto diradira ku dheeraaday inaan dhaafo noloshaada gadaal iima dhigayaana nafsi dhiilka ha u qaadan. ma fahmay suugaanta dadka qaar baa dhadhamaya qaarna waa iskugu wada mid wixii loo sameeyay. qof dhadhaminaya oo ay wax u tartay. aad iyo maxaa kaaga soo noqday? waxay iga soo noqday intaa mahad celin badan meel kasta uu la taagan yahay. laakiin xaaladiisa isaga aad buu fiican. isbedel fiican ha. maxaad ergey ugu geli weyday toos gabayga ka sug? waxaan ugu geli waayey horta gabadha ma aqoonin qofkan markaad aqoonta u leedahay bay wixii ku fudud yihiin. isagiis yaqaanay baa ka sii jeeday. isagii yaani ka qabanin telefoonkan la hadlay markaa wax kasta kaaga soo noqon kara. laakiin waxa jirtay inay isagii gabar kale jeclaatay aniga ii soo martay mid isaga wadadii markii ku taagan ayaan labada dhexdoodii erga ka galay haddana. taasi waxay ahayd Sahra Xasan Daahir oo ku nool Hargeysa oo suugaanteeda iyo gabayadeeda uga waramaysay Sidiiq Maxamed Burmad. dhegeystayaal markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. goordhaweyd ayaa waxaan ka waraystay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil wuxuuna ku horeynayaa suuqa kala iibsiga.
kowsaray haddii aynu eegno wararka suuqa kala iibsiga maanta halka xaal marayo kooxo badan ayaa isku dayaya inay dhammaystiraan kooxaha ay ku soo shaqo tegayaan xil ciyaareedkan bilaabmaya haddaynu horyaalka ingiriiska eegno dhammaan kooxaha ingiriiska oo badankoodu joogay maraykanka waxaa soo dhammaaday ciyaarihii ay isugu diyaarinayeen xil ciyaareedka cusub suuqa haddaynu eegno kooxahaasi ciyaartooyda ay raadinayaan b s g waxaa lasoo sheegayaa in Kylian Mbappe uu kooxda Chelsea oo raadinaysay uu u sheegay in uu keliya u furan yahay inuu ciyaaro 1 sano oo keliya kadibna uu Real Madrid ugu sii wareegi doono si bilaash ah xil ciyaareedka dambe kooxda Man United waxa ay raadinaysaa ciyaaryahanka 19 jirka ah ee dhexda uga ciyaara kooxda Southampton ee lagu magacaabo Romeo Lavia kadib markii Liverpool laga soo diiday heshiiskii ay ku doonaysay inkastoo dhanka kalena ay Liverpool isku dayayso inay ciyaaryahankan ku soo xoojiso kooxdeeda Kowsaray Manchester United sidoo kale waxa ay xaqiijisay in ciyaaryahanka 20 jirka kooxda Atalanta u ciyaari jiray lagu magacaabo Rasmus Hojlund uu dib ugu dhacay soo bandhigitaankiisii maadaama ay la soo saxiixdeen toddobaadkan dhammaadkiisa taasoo ka dhigan in xadda ama sabtida ay faafin doonaan ciyaaryahankan iyo nambarka kooxda uu xidhan doono iyo sidoo kale heshiiska ay siiyaan inta uu noqon doono sidoo kale kabtanka ingiriiska ee Harry Kane oo 30 jir ah ayaa isagana la sheegayaa inaan weli ka niyad jabin inuu aado kooxda Bayern Munich wuxuu qorsheynayaa in uu ka tanaasulo qayb ka mid ah mushaharkiisa si uu ugu qasbo kooxda Tottenham inay gado oo ay ka iibiso kooxda Bayern Munich Kowsaray cabdiraxmaan markaan ka soo tagno wararka suuqa kala iibsiga bal waxaad iga warantaa Messi iyo Mareykanka halkay kala marayaan Messi waxaad moodaa Kowsaray durba inuu Mareykankii la qabsaday xalay kulankii saddexaad ayuu ciyaaray kooxda Inter Miami waxay 3-1 kaga badisay kooxda Orlando City xilli ay ciyaarayeen koobka League Cup-ka 3 gool 2 ka mid ah ayuu Messi dhaliyay marka durba Messi wuxuu marayaa 3 kulan ee u dambeeyay ee uu ciyaaray inuu dhaliyay tiraba 5 gool waxaana taasi cadeynaysaa in Messi uu ku socdo inuuba noqdo ciyaaryahanka ugu golasho badan kooxda Inter Miami kooxda Inter Miami sida ay noognahay waa koox iska yar oo cusub waxaan la leeyahayba in goolasho ugu badan ciyaartooyga kooxdan haysta inuu dhaliyay kaliya 27 gool Messi hadduu durba dhowr gool oo kulan kasta 2 gool dhalinayo waxaa suuragal ah in xil ciyaareedkan dhammaadkiisa ama 2 xil ciyaareed ka bacdi inaynu maqallo in Messi uu durba noqday ciyaaryahanka ugu goolasho badan kooxda Inter Miami dhanka kale waxaa socda tartanka koobka adduunka ee haweenka xagee wax marayaan Kowsaray koobka adduunka haweenka ayaa socda xil ciyaareedkan uu ka duwan yahay sanadadii hore waxaad moodaa in taageerayaasha dadka daawada kubadda dumarku ay soo badanayaan garoomadii la buuxinayo kooxihii iyo dalalka ay ciyaartooydaasi kala matalayaanna ay dabcan si culus u taageerayaan ciyaartooyda matalaysa sheekooyin xiise leh oo fara badan ayaa ka soo baxay imika waxaa loo gudbay qaybtii 16 haddaynu sheekooyinkaas eegno Kowsaray waxaa ka mid ah Marta oo Brazil u ciyaarta waxay ciyaaraysay koobkeedii 6aad ee u dambeeyay waa 37 jir shalay ayaa laga badiyay xulka Brazil oo ay ku hadheen isreebreebka hore waxayna ka dhigan tahay in Marta xil ciyaareedkeedii kubadda cagtu sidaa kusoo gabagaboobay marka loo eego dhanka koobka adduunka waxay dalka Brazil matashay 189 ciyaarood waxayna u dhalisay 122 gool dadka kale ee aadka warbaahinta u qabsaday ee hadalhaynta abuuray waxaa ka mid ah ciyaaryahanada da'da yar ee lagu magacaabo Linda Caicedo oo u ciyaarta dalka Colombia Linda waxay jirtaa da'aada 17 jirka durbana koobka wacdaraaya ka dhigaysa 2 gool ay xulkeeda u dhalisay iyadoo 2 goolba ahaayeen 2 gool oo muhiim ah oo ay kooxdeeda guusha ku raacday waxaana sheekada Linda xiisaha u yeelay waxa weeye in la xasuusto 2020 xilli uu hayay kansar uu hayay isla mar ahaantaana lahaa nolosheedu xaalad adag bay ku jirtaa kadib qalliin bay martay waxaana ay ku badbaaday qalliinkaas iyadoo oo xanuunkii u jiftay kasoo kabatay haatanna wadankeeda ayay ku matalaysaa fagaarahaas caalamiga qofka kale ee hadalhaynta abuuray waa gabadha lagu magacaabo Lauren James oo iyaduna xulka Ingiriiska u ciyaarta James durba waxaa la arkaa goolasha tirada badan ay dhalinayso waxaana Kowsaray durba loo saadaalinayaa inay noqon karto laacibka koobkan marka ay tahay dhanka haweenka cabdiraxmaan cali dhimbiil waa mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkaasi la xiriira ciyaaraha dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo maxamed cabdiraxmaan uu soo saaray anigoo ah Kawthar maxamed cabdulaahina aan idina socodsiinayay
haddii uu barnaamijka ku dhaafay waxaad dib uga dhegeysan kartaa bogga aanu internetka ku leenahay ee bbcsomali.com sidoo kale waxaad naga heli kartaa oo aad barnaamijkan dib uga dhegeysan kartaa bogga facebooka ee bbc somali bbcsomali.com sidoo kale waxaad ka heli kartaa warbixinada iyo wararkii ugu dambeeyey oo aad halkaasi ka akhrisan karto dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo dib waxaan hawada ugu kulmi doonaa berri 7 aroornimo hadduu eebbaha awoodda la yidhaahdo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo